laakiin arrin dadka Soomaalidu ay iska warqabin ayaa dhacday 28 oo ahayd qof walba wuxuu og yahay moogta wuxuu og yahay u sheegaa waxay ahayd 28 dowladii Mengistu oo Ethiopia ka dhisnay waxa heshiis ay la gashay Yementii Koonfureed Koran Qadaafiga Liibiya Abdullaahi Yuusuf afartooda ayaa cadan isugu tagay waxa la yiri dowladda Soomaaliya ka dhisan Maxamed Siyaad Barre madaxa ka yahay shabaada iyo shaqayn iyo waxa kaba qaadi karaan ama long term bay qaadanaysaa fikradda Qadaafi soo jeediyay waxaan rabnaa laba dalba dowladahooda in xoog lagu qabto Soomaaliya iyo Suudaan waxa haysta general la yiraahdo General Numeri waa in shabaab lagu kiciyaa laakiin ciidan aan lagu taageeraa shabaabda SPLM la yiraahdo John Garang madax ka yahay oo koonfurta Suudaan in shabaab kale oo reer waqooyiga Suudaan leeyahay Korneel Yacquub madax ka yahay ya Qadaafi dhaqaale iyo ku biyo xubasi SDF magaalada Casab la yiraahdo Ethiopia ku taala hada Eritrea ka mid ah ayaa taangiyo rockets PM lacag looga soo dejiyay waxa la yiri 20,000 oo ciidan ah hala tababo 20,000 oo ciidan ah Ethiopia iyo Liibiya iyo Yemen ku dareen ciidamo dagaalku was inuu ugu dheeraan waa qayb kamid ah dagaalka qaboobay gali marka Cabdullaahi uu hogaamiyay arintaas dagaalkaas waa in la qabtaa gobolada dhexe hal weeraro hal la qabto gobolada mudug iyo galgaduud markii la qabto dalka Soomaaliya waxay noqonaysaa labo mabda'an marka ciidan lagu diyaariyay baa jira xadka Soomaaliland iyo Ethiopia hadda u dhaxeeya ciidankaas waxay sahlaysaa in Hargeysa iyo Berbera la qabto iyo Buraayo Soomaaliya kala go'do marka is haystaan marka goboladan hadda Puntland la yiraahdo iyo waqooyi ilaa iyo gobolka galgaduud oo galmudug ka jirto hadda la yiraahdo marka gacanta lagu dhigo koonfurna ciidan baa xagga iyo gado iyo doolow iyo dhanka Baari iyo Yeed dhulka baydhabo ku beeran la geeyay يعني إن حق وقته Soomaaliya oo laga saaro Mengistu waa ogay fikradii ilaa sayid dalkiisa laga duulay yani Mengistu wuxuu yiri ninkii aniga igu soo duulay 1977 ee adduunka wax ka qaban waayay ilaa aan jabinay maanta baan u haystaa chance maanta ayaa waqti u haystaa fikradii baa isku raacay kuma control magaalo qabri dahre la yiraahdo marka wax Soomaaliya Cabdullaahi soo fadhiya Soomaaliya ururkii marka asaga madax ka ah waqtiga asaga madax ka ah firadii baa la keenay waxa la yiri bisha July la xuso oo xorriyadda maalinteeda